رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد هدي إلهي هذا سبحانه وتعالى waxaan ka bilaabaynaa meesha kitaabka lagu magacaabo 40 ama al-40 waa kitaab axaadiista nebiga qayb ka mida markaa ku soo aruursan taasoo ka hadlaysa waxyaabo fara badan oo qofka bini aadamka ama muslimka wanaag ugu horseedi kara qofka muslimka waxaa laga rabaa marka kitaabkan barashadiisii ku dhaqankiisa ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu noo noqdo kitaabka mid saa'iqa oo noo kaxeeya dariiqa mustaqiimka iyo dariiqa jannada kolley markaan kitaabka dhexdiisa gaarnaan arki doonaa sida uu u hadlaayo alxadiidu alawal xadiidkii koowaad can amiiri almu'miniina mu'miniinta amiirkoodii ayaa laga wariyey abi xafsin ahaa waa cumar ibn alkhitaab radia allahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee cumar ibn khitaab ayaa laga wariyo qaala wuxuu yidhi cumar samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaan maqlay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ilaahay ha yeele oo yaquul dhahaya inama alacmaalu camalka oo idil binniyaati niyaadka ayay ahaayeen iyo niyooyinka ayay ka ansaxaan wa inamaa likulli imri'in shaksi walbaana wuxuu leeyahay maa nawa wixii markaa uu niyeysta faman kaanad qofkay ahaata hijratuhu hijradiisa ila allahi ilaahay dartii ay xaggiisii wa rasuulihi fa hijratahu hijradiisu waa ila allahi wa rasuulihi waman kaanad qofkaysa ahaata hijratuhu hijradiisa lidunya adduunyo yusiibuhaa inuu asiibo uu helo aw imra'atin ama naag yankixuhaa uu nikaaxsanayo fahijratuhu hijradiisu ilaa maa haajara ilayhi wixii xaggiisa uu u hijrooday ayay markaa tahay rawaahu waxaa wariyey xadiidka imaam almuxadisiin labadii imaam ee muxadisiinta ahaa waa abu cabdullaahi moxamed ibni ismaaciil ibnu ibraahim ibnu mugiira ibnu bardad albukhaariyu ahaa iyo ka labaad oo ah abulxusayni muslim ibn xajaaj bin muslim alqushayriy annaysaabuuri oo loo nisbeeyey fii saxiixayhima labadooda saxiix ayay ku wariyeen alladayni labadaasoo humaa ayaguba asaxu lkutubi kutubaha kuwa ugu saxiixsan ah almusanafat ee markaa la sanifay xadiidku wuxuuna tusayaa niyadu inay tahay meesha laga fiiriyo tasxiixa acmaalaha mar walbay niyadu wanaagsanaata camalku waa wanaagsanaadaa mar walba oy niyadu fasahaadana camalku markaa waa fasahaada sidaa darteed ayaa loo baahan yahay qofka inuu wax walba uu niyeysto khayr iyo wanaag uu ka dhigo waxaana loola jeedaa qofka inuu sameeyo waxa uu samaynayo khawfan min allahi tacaala cabsi ilaahay xaggiisa uu uga cabsanayo inuu u sameeyo iyo cibaadada addoonkaa taaca iyo inuu shayga uu dalbayo uu u dalbo inuu janno ka helo iyo hawaab waa cibaarada tijaarada sidaa darteed waa qofku inuu wax sameeyo asagoo xishood alle ku jira gutana xaqa ilaahay ku leeyahay subxaana wa tacaala sidaa darteed ayuu rasuulku yidhi inama alacmaalu binniyaat camalada oo dhan niyada ayay ahaadeen qof allaala qof kastana waxa uu leeyahay wixii markaa uu niyeysto qofkay niyadiisu ahaato ilaahay dartii qofkay hijradiisu ahaato ilaahay dartii iyo rasuulka hijradiisu intaa ayay ahaato hawaab fiican ayuu ilaa xaggiisa ka hela subxaana wa tacaala wa inamaa likulli imri'in maa nawaa shaksi walbaa wuxuu niyeystay leeyahay ee faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa xaggooda oo sababta uu uga baxayo magaalada maka oo u aadayo madiina hijradaas sababta uu u galay hadday tahay ilaahay dartii iyo inuu u gargaaro rasuulka hijradiisa taa ayay ahaato niyadiisa markaa loo hawaabina waman kaanat hijratuhu lidunya qofkiisa qaradkiisii adduunka uu ahaado iyo ujeeddadiisa iyo inuu helo naag uu nikaaxsado fahijratuhu ilaa maa haajara ilayhi wixii uu u hijrooday ayuu markaa leeyahay waxaad ogaataa ikhlaaska mararka gobol ka mida inuu u soo banbaxo aafaad cajaa'ib badan qof kastoo camalkiisa uu cajabiyo camalkiisu waa bura
qofkii isweynaysiiya saasoo kale maca daalika waxaa la rabaa qofka waxa uu falaayo ama uu dalbayo adduun iyo aakhira waxay ahaadaanba in niyo fiican oo khaalis ahoo ilaahay dartii uu u sameeyo markaa ay ka ahaato. xadiidku wuxuu tilmaamayaa ama waa axaadiista ay ku bilowdaan kutubaha dhammaantood, waxaana loola jeedaa qofka wax baranayo waxa aad baranaysa ka dhig camalkaaga ama niyadaada mid ilaahay dartii ah. qofka kitaabka qoraya saas oo kale wax walba oo la rabo in la sameeyo in niyad fiican markaa lagu sameeyo. inama alacmaal marka la leeyahay inamaadaa waxay tilmaamaysaa waa xasri, waxaa loola jeedaa wax kale maba ahane camalka meesha qofka laga fiiriyo ikhlaaskiisa iyo wanaagiisa waa niyada. inama alacmaalu binniyaat, niyada ayay markaa ahaatay. wa inamaa likulli imri'in maa nawaa, qof walbana wixii uu niyeysta ayuu markaa leeyahay. camalada meeshay ka ansaxaan, meesha laga aqbalo, kamaalka, nusqaanta, kulli meelaha laga helo waa niyada. qof walbaa niyadiisa sida ay tahay ayaa markaa lagu jaasinaa. wax walbana niyaa loo baahanya qofku inuu la yimaado. wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin. markaad tukanaysa niyo la imow, markaad soomaysa niyo la imow. wax walba niyada ayay markaa ka ahaatay hijrada. qofka uu samaynayo waxaasoo dhan waa inay ilaahay dartii ahaadaan subxaana wa tacaala. haddii kayrkiis ay ku jiraan qofku hawaab markaa ma laha. marka qofka waa inuu niyada aad ugu dadaalo khayrkeeda iyo wanaageeda. maxalkeedana waa qalbiga, in lagu talafudo ama lagu dhawaaqaana markaa lama ogola. marka qofka muslimka waa inuu xaaladaa ogaado, waxa uu samaynayo oo dhanna niyad fiican uu ku sameeyo. alxadiid athaani, xadiidkii labaad, can cumar ibni can cumara radia allahu canhu aydan waxaa loola jeedaa waa noqod ama mar labaade. qaale wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu anagoo juluusu fadhina cinda rasuulillaahi, rasuulka ilaahay agtiisa sala allahu calayhi wasalama, daata yowmin maalinna ay u saaxiib tahay, iطalaca calayna waxaa nagu soo daalacay korkeenoo nagu soo baxay rajulun nin shadiidu bayaadi hiyaabi, dharkiisa caddaantoodu ay aad u daran yihiin. macnaha nin dharka uu watay aad u nadiif yihiin oo aad ay u cad yihiin ayaa nagu soo baxay anagoo koox saxaabo ah aan nahay oo nebiga la fadhino. iطalaca calayna waxaa nagu soo baxay dusheenna rajulun nin oo shadiidu bayaadi hiyaabi, dharkiisa caddaantoodu ay daran tahay, shadiidu sawaadi shacri, timihiisa madoobaantooduna ay aad u daran yihiin. laa yura aan lagu arkayn calayhi korkiisa aharu safari, safaraadkiisa. nin bannaan ka yimid oo musaafira ma aha, ileen hadduu musaafir ahaan lahaa basaas iyo dhib iyo wasaq iyo waxaa ka muuqan lahayd, tii ma laha. walaa yacrifuhu mina axadun, axad annaga naga mid ah oo yaqaanoo aqoonsanaya ninkaana ma jiro. macnaha wuxuu cumar ula jeedaa ninku ma aha nin magaalada degano, hadduu magaaladu degan yahay waa la aqaan lahaa. haddana nin musaafirna uma ekoo bannaan ka yimid, hadduu bannaan ka imaan lahaa aahaartii safarkaa ka muuqan lahayd. labadaba ma aha. xataa jalasa ilaa uu la fadhiistay ninkii ila annabiy, nebiga ayuu la fadhiistay sala allahu calayhi wasalam. faasnada wuxuu ku tiiriyey rukbatayhi, labadiisa jilbood, ilaa rukbatayhi, labada jilbood oo nebiga ayuu saas ugu tiiriyey. wa wadaca wuxuu saaray kafayhi, labadiisa kafood waa gacmaha inta lulata, calaa faqidayhi, labadiisa faqadood ayuu saaray. calaa faqidayhi yaa loo celina. qolaa tiri nebiga labadiisa cajarood ayuu saaray, laakiin waxaa ka wanaagsan in la dhaho cajarooyinkiisa ayuu ninku saartay. aadaabtana taasaa markaa ku fiican. wa qaala ninkii wuxuu yidhi, yaa muxammedow akhbirnii can ilislaami, islaamka iiga khabarba. islaamka maxaa la yidhaahdaa ii sheeg. faqaala rasuulullaahi, rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, alislaamu, islaamku waxa waaye an tashhada, inaad qirta an laa ilaaha ila allahu wa anna muxammadan rasuulullaahi. waa inaad qirta alla xaqnimo lagu caabudo inuusan koonka mawjuud ku ahayn ilaa ilaahay maahane subxaana wa tacaala. muxamedna inuu rasuulkii ilaahay yahay oo ilaahay soo dirsaday, risaalo loo doortoo aamin ah, ummadda loo soo diray inaad qirto waayo. wa tuqiima asalaata,
salaada aad hagaajiso, watu'tiya azakaata sakadana aad gudato, watasuuma ramadaankana aad soonto, wataxuja albayta baydkana aad u xajisood u qasada, in istadacta haddaad kari karta ilahi xaggiisa sabiilan jid, haddaad jidkiisa awoodi karta inaad xajkana aado. intaa waaye islaamnimada. qaala ninkii wuxuu yidhi sadaqta, run baad sheegtay, runtaa waaye muxamedow. facajibnaa waan la yaabnay ayuu yidhi cumar lahu ninkii, yas'aluhu wayusadiquhu, waa rumaynaa waana su'aalanaa. su'aalashadiisa iyo rumayntiisaan la yaabnay. ilan waa nin arday ah, waa nin hadda su'aal weydiiyey oo wixii loo jawaabo inuu qaato la rabay. haddana sadaqta ayuu yidhi oo nin yaqaanu iska dhigay. cumar tii baan la yaabnou dhahay. facajibnaa waan la yaabnay lahu ninkii, yas'aluhu wayusadiquhu, su'aalashadiisa iyo rumayntiisa. qaala wuxuu yidhi haddana, faakhbirnii can iliimaani, haddana iimaanka iiga khabar bal oo iimaanka wax iiga sheeg. qaala wuxuu yidhi nebiga, an tu'mina biاllaah, waa inaad ilaahay aaminta inuu ilaah keligii yahay, wa malaa'ikatihi, malaa'igtiisa aad rumayso, wa kutubihi, kutubtiisa aad rumayso samaawiga cirka laga soo dejiyey, wa rusulihi, rusushiisa inaad rumayso, iyo walyawmi alaakhiri, maalinta dambe ee aakhira inaad rumayso, wa tu'mina inaad rumayso bilqadari, qadarkana inaad rumayso, khayrihi wa sharihi, khayrkiisa iyo shartiisa inay xagga ilaahay ka yimaadaan subxaana wa tacaala. qadarka inaad rumayso wax walba oo qadar ah oo dhaca, hadday shar tahayna inaysan meel kale kaaga imaanin ilaa jiha alla maahane, hadday shar tahay iyo hadday khayr tahay labadaba. qaala ninkii wuxuu dhahay sadaqt, runtaa waaye. haddana qaala wuxuu yidhi ninkii, faakhbirnii ii sheeg haddana can ilixsaani, islaamkii iyo iimaankii ogaadaya ixsaanka wax iiga sheeg. qaala wuxuu yidhi nebiga, an tacbud allaha, waa inaad ilaahay caabudaa, kaannaka taraahu, sidii adigoo arkaya oo kale u caabud ilaahay. waayo fain lam takun, haddaadan ahayn taraahu mid arkaya, fainahu yaraaka, ilaahay asagaa ku arkaya oo kuu jeeda subxaana wa tacaala. haddaadan adi u jeedin asagaa ku arkayee mar walba iska dhig ilaahay mid adi u jeeda oo kale. sababta waxaa loola jeedaa qofka aad u jeeddo hortiisa dhibaato kama samaysid, mana caasisid. saasoo kale markaa u sameey ilaahay. qaala ninkii wuxuu yidhi, faakhbirnii, waxaad iiga khabartaa haddana can isaacati, saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa ii sheeg haddana. qaala rasuulku wuxuu yidhi, malmas'uulu, mas-uulka la su'aalaya canhaa saacadda qiyaamo xaggeeda ma aha biaclama, mid uga aqoonsho iyo cilmi badan min asaa'ili, midka saa'ilka ah. macnaa sida adiga saa'ilka i weydiinaysid aad ka tahay oo kalaan ka ahay buu dhahay nebiga. ilaan saacadda qiyaamo dhicitaankeeda qof yaqaanaa markaa ma jiro. yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaaha, way ku su'aalayaan saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa. saasoo dhahay ilaah subxaana wa tacaala, yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaaha, waxay ku weydiinayaan goormay dhacaysaa, ee waxaad dhahdaa cilmigeeda ilaahayaa loo celiya subxaana wa tacaala. aniga ma aqaana, malmas'uulu ma aha midka la su'aalaya canhaa saacadda qiyaamo xaggeeda biaclama, mid uga cilmi badan min asaa'ili, saa'ilka iyo midka su'aalaya. qaala ninkii wuxuu dhahay haddana, faakhbirnii, waxaad iiga khabartaa ood ii sheegtaa can amaaraatiha, calaamaadkeeda. waayahee haddaadan aqaanin saacadda qiyaamo wakhtiga ay dhacayso, calaamaad aan ku aqoonsan kara inay soo dhowdahay ama ay imaanaysa ii sheeg haddana. qaala wuxuu yidhi nebiga, an talida alammatu, waa inay addoontu dhashaa rabbataha, rabbatadeeda iyo qofkii u talin lahaa. wa an tara, iyo inaad aragta alxufaata, kuwii kobaha la'aa, alcuraata ee qaaqaawanaa, alcaalata ee cayrta ahaa oo faqiiriinta ahaa, ricaa'a ashaa'i, ariga raaci jiray, yatataawaluuna, intay baadiye ka soo baxaanay magaalo yimaadaan, oo yatataawaluuna ku faantamaya fi lbunyaani, dhismaha iyo sardheerayn ku faantamaya. taas haddaad aragta saacadda qiyaamo sug buu dhahay nebiga. uma intalaqa, intaa ka gadaal waa tegay nebiga. falabistu waa nagaaday buu dhahay cumar maliyan, zaman ayaa nagaaday. uma ka gadaal qaala wuxuu ii yidhi nebiga, yaa cumaru, cumarow, atadari, ma taqaanaa man isaa'ilu, saa'ilka su'aasha i weydiinaayey ee ii yimid ma taqaanaa? qoltu waxaan idhi buu yidhi, allahu warasuuluhu aclam,
maye ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa ku cilmi badan. qaala wuxuu dhahay nebiga fainahu jibriilu, war nin caadiya ma ahayne malakul jibriil ayuu ahaa. ataakum waa idin yimid yucallimakum asagoo idin baraya diinakum ay amra diinakum, diinkii amarkii diinkiina idinku asagoo idin baraaya. saasuu u yimid ee nin caadiya ma aha. rawaahu muslim baa xadiiska wariyey. riwaayad kale ayaa tilmaantay intaa kadib ninkii waa iska tegey. rasuulku wuxuu dhahay ruduuhu, warbax ii soo celiya, ka daba taga ninkii soo waca. saxaabadii way kala ordeen, meel kastii xaafadaa la galagalay, ninkii waa la waayey. way soo noqdeen, waxay dhaheen rasuulkii alloon waa weynay. markaasuu dhahay dhaafa, nin caadiya ma ahayne jibriil ayuu ahaa, wuxuuna u yimid amarka diinka inuu idin baro. riwaayadan cumar wuxuu ku leeyahay uma intalaqa falabistu maliyan, 3 maalmood ayaa lagu fasiraa. waxaa suuragala markuu ninku dhaqaaqay intuusan nebigu dadka u sheegin inuu cumarna baxay. 3 maalmood ka bacdi uu nebigu yidhi yaa cumar atadri man isaa'il, ma taqaanaa saa'ilkii su-aasha i weydiinayo? cumar uu dhahay maya, ilaah iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan. rasuulkana uu yidhi fainahu jibriilu, jibriil ayuu ahaa, waa malakul jibriil. ataakum yucallimukum diinakum, waa idin yimid asagoo diinkiina idin baraaya. xadiidka cajiibka badan wuxuu noo tilmaamayaa ama aan ka fahmaynaa oon ka qaadanaynaa waxyaabo aad iyo aad u fara badanoo na loogaga baahan yahay inaan markaa samayno. cumar ibni khitaab wuxuu yidhi wakhti anagoo fadhina rasuulka agtiisa sala allahu calayhi wasalam, meesha waxaan ka fahmaynaa saxaabadu inay aad u jeclaayeen nebiga, markastana agtiisa ay markaa fadhiyaan ayna rabaan inay ka aadaab qaataan, cilmigana ay ka bartaan. daata yawmin, maalin ay u saaxiib tahay, iطalaca calaynaa rajul, nin ayaa nagu soo baxay shadiidu bayaadi hiyaabi, dharkiisuay aad u cad yihiin. waxaa laga qaadanaa qofku dharkiisa inuu aad u nadiifsado. shadiidu sawaadi shacri, timihiisuna ay aad u madow yihiin. qofka inuu aad iyo aad u wanaajiyo timihiisa, laa yaraa calayhi ama laa yuraa calayhi, dushiisa aan lagu arkaynin atharu safari walaa yacrifuhu mina axad. ninka nin bannaan ka yimid waaye, laakiin bannaanka imaasha kama muuqato. ninka nin magaalo ka soo baxay ma ahee, waa la aqoon lahaa hadduu magaalada ka imaan lahaa. intaa ka gadaal ayuu soo socday xataa jalasa ila annebiy, ilaa nebiga uu la fadhiistay. faasnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi, labada jilbood ayuu labadiisa jilbood saa u saaray. waa aadaabta qofka loogu talagalay marka uu rabo qof kale inuu su'aalo inuusan gadaal ka soo qaylin, laakiin hortiisa uu yimaado. intaa ka gadaal labadiisa gacmood ayuu faqidooyinkiisii cajarooyinkiisa saartay. saan soo tilmaanay cajaraha nebigana waa lagu fasiraa, laakiin waxaa ka fiican ayaan dhahnay inuu kuwiisa saartay. ileen aadaabta taasaa ku fiican. intaa ka gadaal wuxuu dhahay moxamedow, islaamku muxuu yahay? islaamnimadaana loo tilmaamay inay tahay in la qira laa ilaaha ila allah, in la raacsiiyo muxamedan rasuulullah, salaada oo la hagaajiyo, sekada oo la bixiyo, ramadaanka oo la soomo, iyo xajka oo loo qasta qof walba oo yubaad iyo tabar markaa u leh. ninkii runtaa waaye ayuu dhahay intaa waxaan ka qaadanaynaa islaamku inuu yahay acmaal daahir ah oo muuqatoo laga rabo qofka inay ka soo daahirto. intaa ka gadaal ninkii iimaanka ayuu su'aalay. waa qoladii kala bixisay islaamka iyo iimaanku inay laba markaa kala yihiin. sidaa darteed islaamkii iimaanku waxaa kaloo lagu tilmaamaa wax saas u farqi badan ama farqi u dhaxeeya inuusan markaa jirin. ileen ilaah aayad ayuu ku yidhi qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walakin quluu aslamna, waa rumaynay hadhihine waan islaamnay dhaha, waayo qalbigiina weli iimaanka markaa ma geline. sidaa darteed ayaa islaamka iyo iimaanka qolada kala qaadaa saas ay yidhaahdaan. fa akhbirnii can iliimaan buu yidhi, haddana iimaanka ii sheeg. iimaanku waa inaad rumaysaa la yidhi ilaahay inuu keligiis yahay, waxdaaniyada asaga mutaystay, qaaliqa koonka abuuray inuu markaa yahay, wax cajis gelin kara uusan jirin, alla xayi ah oo qayuumoo noolaan jiray haddana noolaana doona inuu yahay subxaanahu wa tacaala. inaad rumayso ka malaa'igtiisa inaysan ahayn owlaad alla dhalay subxaanahu wa tacaala sida dadka gobol ka mida ay markaa tilmaamaan, iyo mushrikiinta, laakiin inay yihiin addoommo ilaahay laa yacsuuna allaha maa amarahum, wuxuu ilaahay amra aan caasinin, wayafcaluuna maa yu'maruun, laa yasbiquunahu bilqowl wahum biamrihi yacmaluun. mana kalama hormaraan ilaahay, hadal amarkiisa ayay fuliyaan. nuur ayaa laga abuuray, waa addoommo ilaahay qalqay subxaanahu wa tacaala wa malaa'ikatihi.
وكتبه إناد رميس كتبها ألا سودجي توراة إنجيل زبور كتاب القرآن كأ ورسله رسوشيس إناد رميس ضمان جملة أهان إناد آمنتو واليوم الآخر ما لنت ضمد آخرنا إناد رميس إني جرت بحثك صوب بحيطان إيا ما لنت بأهو ددك لك لأبا المرينايو إيا مد لحاد وتؤمن بالقدر وحدع إناد رميس خيره وشره غير باكو أثيبي ربي أغو مهدي قفك لكو مكينيني شراكو ودعي إلهي أغو صبر سبحانه وتعالى كان بري دبك إنو كاقاض قال صدقتو ناينينكي هذا نوحو يري عن الإحسان إيشيك نبيغو وحو يري إحسانكو وإناد إلهي عابدا سيدي أذيغو أركايا أوكالي هذا أذيغ إلهي أجيد أساقا كوجيد سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم والله كو أركا يمركز استاغيسي وتقلبك في الساجدين مركز سجودك قد قدوميسي إلهي وكوجيد سبحانه وتعالى إلهي لما أركا لكن أسقى وحركا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سلاسو إلهي أهاضي سبحانه وتعالى وحنك قاضنينا إسلام كشان أركان إنو يشنتيرو إيمانكنا إنو لحيهي إحسانكنا ركن قونية إنو مركايهي انتا كقضال ننكي وحو طاي رسولك الله محمد وإيشيك عن الساعة قرمي دعيسا ساعة قيامه rasuulku wuxuu ugu jawaabay mas-uulka iyo saa'ilku waa isugu mid saad ka tahay ayaan markaa ka ahay waayo macnaha fiima anta min dikraaha buu dhahay ilaahay maxaa kaaga sugnaaday xusuusashadeeda way ku weydiinayaan sidii adigoo yaqaan oo kale buu ku dhahay ilaahay aayad kale yas'aluunaka kaannaka xafiyun canha sidii adigoo yaqaan oo kale waxaad dhahdaa inamaa cilmuhaa cinda rabbi laa yujalliiha liwaqtiha ilaa huwa wax faydi kara ma jira waqtigeeda ilaa asaga maahani saas ku dheh buu dhahay ilaahay idan mas-uulka iyo saa'ilku waa isugu mid ii sheeg buu dhahay haddana amaaraadkii can amaaraatiha calaamaadka lagu yaqaano an talida alammatu waa inay hooyadu dhashaa rabbatahaa gabadhii u talin lahayd qiyaamaha waxaa dhacaya in waalidka loo taliyo gabdhaha la dhalay ay taliyaan waa sida muxadisiinta gobolka mida ay ku fasireen sida maanta la taagan yahay owlaadda ayaa wax taliso waalidkii ayaa loo talina ilmihii la dhalay ayaan la adeejin karin ilmihii la dhalay ayaan loo talin karin an talida alammatu rabbataha waxaa dhici karta in loola jeeda addoontu inay dhasho sayidadeeda oo laga wado waxaa badanaya dagaalkii muslimiintu gaalada ku qaadi doonaan waxaa lasoo qafaalayaa naaga fara badan waxaa loo qaybinayaa ragga muslimiinta ah mar allaala markay owlaad u dhalaan islaanta ileen waa qof lasoo qabto milkigii ninkaa gashay oo waxay ku jirtaa darajo amanimo ama addoonnimo canugtaa ama gabadha ay dhashay darajadii sayidnimaday markaa tegaysaa wa an talida alammatu rabbataha waxaad kaloo ku fahmaysaa wa an tara alxufaata kuwii kobola-aanta socon jiray alcuraata oo qaaqaawana ilaan dharla-aanta haysay alcaalata ee danyartaaha ee faqiiriintae baadiyaha joogay ricaa'a ashaa'i oo ariga raaci jiray qowsaarada ahaa intay baadiye ka soo tagaanay magaalada yimaadeen yatataawaluuna ayagoo ku faantamaya fi lbunyaani dhismahay ku faantamayaan anaa kaa sardheer iyo anaa kaa cimaarada dheer taana haddaad aragta waa saacaddii qiyaamo calaamaadkeeda arrin gacanta lagu hayo waayo iidana intaa ka gadaal ninkii waa baxay falabistu maliyan zaman ayaan nagaaday buu dhahay uma qaala yaa cumaru atadrii man isaa'ilu ma taqaanaa saa'ilkii su-aasha i weydiinayey ayuu yidhi nebiga qultu cumar waxaan idhi buu yidhi allahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa ku cilmi badane anigu markaa ma aqaano meesha waxaa laga qaadanaa nebigu markuu su-aal weydiiyey allahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan maanta waxaad maqlaysaa dadka gobol ka mida haddii wax ay weydiinayaan ama la weydiiye ama ay rabaan inay cilmiga dhinac kale u leexiyaan inay dhahayaan allahu warasuuluhu aclam waxaa lasu waafaqay araddaa inay mamnuuc tahay oo maanta lagu ekaan kara allahu aclam keliya oo fii xayaatada nebiga ay ahaan jirtay allahu warasuuluhu aclam sidaa waaye ileen rasuulka markuu noolaa hadday u tiiriyaan darajo waxyi ayaa u imaanayo jiha rabbiyaa looga soo waxyoonaa saasuu markaa dadka ugu sheega laakiin hadda waa allahu aclam keliya qaala fainahu jibriilu ataakum waa idiin yimid yucallimukum asagoo idin baraya diinakum diinkiina
diinkiina inuu idin baro ayuu markaa u yimid. sidaa darteed ayaa xadiidka waxa uuna tusaaleeyey ama uuna baray arrimooyin aad iyo aad markaa u wanaagsan loona baahan yahay dadka muslimiinta inay raacaan. haadaa jibriil ayuu ahaa, waa malakul jibriil, inuu amarkiina diinkiisa idin bara ayuu rabo. iimaankii, islaamkii, ixsaanka marka laysku daro ayaa diin markaa lagu magacaabaa. saasaa markaa loola jeedaa. alxadiidu athaalith, xadiidkii saddexaad, can abi cabdiraxmaan cabdillaahi bni cumar bni alkhitaabin ahaa radia allahu canhuma. asii aabiiba allah ka raadi noqdee, qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahda cabdullaahi bni cumar, samictu rasuula allahi, rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo yaquul dhahaya, buniya alislaamu, islaamkii waa la dhisay calaa khamsin, 5 tiirood ayaa lagu dhisay. waa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullahi wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaati wa xaji ilbeyti iyo wa sawmi ramadaanka oo la sooma. rawaahu lbukhaariyu iyo wa muslimu ayaa xadiiska wariyeen. xadiidku wuxuu tilmaamayaa islaamku inuu 5 tiirood ku dhisan yahay. cumar ibni khitaab wiilkiisa waa cabdullaahi ibni cumar ibni khitaabe wuxuu yidhi, samictu rasuula allahi, rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu dhahaya, buniya alislaamu, islaamkii waxaa lagu dhisay calaa khamsin, 5 tiirood ayaa lagu dhisay. qof walba oo 5taa la yimaada faqad tama islaamu, islaamkiisa ayuu taam yeelay. sida beydka marka la dhisayo loogu talagalay in loo sameeyo aasaas iyo tiirar ayaa saasoo kale islaamku wuxuu u baahan yahay rugniyaale iyo tiirar, waana 5taa waxyaabood. maca daalika dhismuhu ma wanaagsanaanaya ilaa in arkaano iyo tiirar loo sameeyo maahane. sidaa darteed ayaa qofka islaamnimadiisu aysan wanaagsanaanaynin ilaa inuu tiirarkii islaamka uu la yimaado maahane. waxay la mid tahay alsalaatu cimaadu ddiin, salaadu waa tiirka diinka. faman tarakahaa faqad hadama addiin, qofkii salaada ka tagaa diinkii ayuu markaa dumiyey. ileen tiirkaa waa tiir macnawi ah waaye, kii ayuu markaa dumiyey waay. maca daalika matal ayuu ka dhigayaa ilaah subxaana wa tacaala nebigiisa. islaamka 5taa tiir ayaa lagu dhisay. shahaadatii waa qiritaan la qiro an laa ilaaha ila allah, ilaahay maahe inuusan alla kala jirin xaqnimo lagu caabudo ila allah, wa anna muxammadan rasuulu ullahi, muxamedna rasuul ilaahay inuu markaa yahay, iyo wa iqaami asalaati, salaada oo la hagaajiyo, wa iitaa'i azakaati, zakada oo la guto, iyo wa xaji ilbeyti, beytka oo la xajiyo. xaji ilbeyt waxaa loola jeedaa in beytka loo qasdo, iyo wa sawmi ramadaanka oo markaa la soomo. riwaayadaha intooda badan waxay horumariyaan soonka oo la soomo, xajkana waa ugu dambeeya oo waa rukniga 5aad. sidaa darteed xadiidku kama muuqato wax tartiib ah. tartiibtu waxay ahayd wa sawmi ramadaana iyo wa xaji ilbeyti. saasoo markaa ahaa riwaayadaha sida ay markaa ku yimaadeen bitaqdiimi alxaji cala asawm. baab tartiiba xagga xukunka ama xagga mutaqaana xukunku waa sidaa, liannahu maxaa yeelay ramadaanka oo la soomo wuxuu waajibayaa xajka hortiisa. riwaayadaha badan sida ayay markaa ku yimideen. marka xadiisku 5taa inay yihiin arkaanta islaamka ayuu tilmaamaya. alxadiidu araabic,